السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلق السلام يا مهد. كوتش آذن أنا وأنا كاغا قاضي سلامتا وحرجيني أنا العافمات قبط. ما شاء الله بنو في عنا هاي الحمد لله إلهي ونوني معي عفمات بلو تشرا يس إذا كان السيدو كلا يدمان أنا أصحاب صورنا يجينا دمان بنو السلام يا ما شاء الله كوتش دي هذا النوع في عنا وأنا كاغا مهل علينا رمتي وقت قالي قاهم الصيني إن شاء الله إيو إلى العاو برامج كنا قال قيب قادته كود maanta de horaan dadka usii sheegay inaan markaa ku yeeri doono kuna casuumi doono insha Allah biidnillah su'aalana ku weydiin doono maanta waxaa jirta dhalinyaro badan oo maaragta social media nagala socota adiga kula socota maanta de adduunkii wuxuu noqday social media markaas si ay markaas waxa weeye wax badan uga bartaan historygaaga ama maaragta taariikhdaada oo kale iyo de safarkaagii nololeed insha Allah biidnillah alkariim waxaan rabaa marka inaan su'aasheedu u horeeyo ay noqoto insha Allah goormaad bilowday Herbalife maxaase kugu kalifay inaad bilowdo oo kugu dhaliyay yes وسؤال ونكسن ما هاد أضبط ما صنتاي إن هرتا يعني إن حلي جام بلعبي إنك إن Herbalife سفر كي جنو بروها أفضل سنة يبرد حدا يلاقي شوجا إن رابط كنيشن تمكي نوفمبر يام بلعبي مركا حلي جاس يعني جو حناها إن يعني ما تسجل سنة كنا على يوروب أفضل سنة يبرد نو حناها يعني جو قف عادي مركا وقولنا ولا حد وقت جدا بنا أم بلعبي سفر كي جنا أفضل سنة يبرد بني مكملة مركا حلي جا هراء وحناها لأن يرد مرة بتشعل إن لايف ستايل كل في عن كنا ولا دان سبدل سميان إن محيدا شقوين بدنا كشقين شلو كلا الدوان حلي جاس لكن وحناها لو إنرجي جو كلا إن حاجات دال كي يقولون بدنا نشري إياه إن المرة بتشعلان شري إن محيدا الشيب كي أما محيدا حور مريع عفمات كي جو مركا إن حلي جاس الله كل من Herbalife أنتي إن وقت جاس Herbalife إيه هالشيء إن وأنا قلنا أنا يعني قف حلي جا مضنا إنه فرصة لكم مركا إن طبعا ممكن قف وحلا كل ما يأكله وحويان وحلورن كلا يعني إن وتشانس كاجا أدو مركو يعني أي حلقة جيتها قفل بوقت جيستها مركا حلقة جيبه absolute serious إن أنا وقت جاس نور شيء إن أنا هلا يعني خرص صعب مركا بنك nutrition هاني يسبدل كي هذا هاي رنتي مركا حنا هلا إن big result أو كم إذا هاي دينا مركبة يعني كفر حا إن ما تك هلا product جن عجيب كان إن energy جيجا هردي يسبدل شيء إن عفمات كي واحد يسبدل لي إن إيو shape كي مركا أنا هذا نيرد سبورت بس ميسو حيلا productيات فربنا استعمال شيء حلقة لكن أن وقت دورتي Herbalife وكليني بالانس جرين كرتو plus nutrition كي إن إيو قيبتي سبورتي وكلي يقولون مركا فضاد إن الهلا وكلاس Herbalife H24 إن before يا after workout كي جينا محيد مركا أن بدن كرون إن استعمال the quality product مركا رنتي إن وحن سوي كي بدلي صدق بلود مركا process كوديبه إن إلا فات بدنيون يجبحه مسك بدنا شركي يجبحه يكرره إن رنتي مركاس أي نقطة صفر كي مركا جوريسيان فرحين إن ما تهلي this opportunity. واو amazing aad iyo aad ugu mahadsantahay runtii waxaan nala wadaagtay bilowgaagii iyo resultigaagii productiga aad ka heshay runtii coach su'aasheeda labaad waxay noqonaysaa runtii de waxaad ka mid tahay dhalinyarada maanta successka ah oo waqti yaro kooban de businesska sameeyay active-ka ah adduunka oo dhan de maanta la hadal haya especially Soomaalida waxaan sameynayna ama especially si sameynayso ama aad Soomaalida adigu u keentay su'aasheedu waxay tahay sida caadiga waxaan nahay Soomaali inta badan horey kama fahano fursadaha oo markiiba waxa way dadka horey fursadaha ka fahma manihin oo waxaan nidhaa waa tuugayso macna xogaa yare waan difaaceenu maaragtaa uu badan yahay marka siday adiga kugu suurta gashay inaad markiiba fursadan fahanto ku shaqayso haddana de maanta aad success tahay sidee isla markiiba u qaadatay miyadan u Soomaali ahayn absolute waa su'aal wanaagsan adigoo waliba dhalinyaro ah hadda and yes horta waxa weeyaan yaniga waa waxyaalaha ugu badan ee dadku yaniga iminka qofka marka dadka maanta nolosha ku guuleystaa yaniga labada nooc noqon karaan qofku inuu
marka ugu muhiimsan waxa weeyaan qofka marka uu wax la kulmo ama fursad la kulmo inaad baahidaada og tahay ama sababta maanta fursaddan kugu soo beegantay iyo qofkan aad maanta tahay iyo noloshaada maanta waxay fursaddan kuu ballan qaadayso oo waxyaalaha yacniga kugu dhiirigeliya marka xilligan aan la kulmay runtii waxaan ahaa qof maxay ahayd shaqooyin badan oo adagna ka shaqayn jiray noloshana marka xilliyadaas yacniga nacay inaan mar dambe dee shaqaale ahaado kale waxyaala noocaasa sidoo kalena in aan maxay ahayd qof u shaqeeyo runtii xilligaa waan ka soo horjeesta shaqooyin badan oo aan ka shaqayn jiray xitaa waa laga soo eriyay dabcan markaan fursaddan la kulmay iyo anigoo xilliyadaas ahaa qof maxay ahayd shaqooyinka aan ka shaqaynayo noloshayda wax isbedelo badan aanay samayn tusaale ahaan shaqadu way badan tahay laakiin nolosha isma bedelayso marka taa qudheeduna wax wariyo igu taagnaa bay ahayd oo ah maxaan sameeyaa laakiin aan ahaa qof la nool wacyiga nolosha oo ku qiimeynaya mar walba ahaa dadku waa sidaa noloshu waa sidaas marka wax dee dhaamad ma jiraan laakiin markaan fursaddan arkay waxa ii furmay albaab cusub dabeetana markaas waxaan ogaa inaan maanta dee yacniga qof hardware kar ahay noloshayda markii horeba hardware kar baan ahaa qof aad u shaqeeya baan ahaa laakiin markaan arkay fursaddana waxaan okay maanta dee waxa ii furmay hadaf cusub hami cusub nolol cusub yacniga maaha just inaan shaqo uun ka shaqaynayo laakiin waxa ah inaan maanta isbeddel samayn karo ama inaan horumarkaan u baahnaa noloshayda gaari karo markiiba waxa ii inaan maanta rumayn karo riyooyinkii nolosha aan doonayay maanta inaan rumeeyo oo runtii ay tahay fursaddan tii ku habboonayd hadday tahay yacniga lifestyleka aan doonayo kale iyo shape ahaan iyo systemkaan doonaya inaan u noolaado maadaama marka horeba dadka shapeka iyo lifestyleka jeclaahay the same product maanta ay yihiin kuwanaasa quality inay weliba easy anfacayaan haddana business ahaanna inaan arkay inuu yahay maanta waxaan jecelahay oo kana shaqayn karo runtiina noloshaydiina bedelaya halka maanta laga yaabo inaan shaqo 3 sano 4 sano 5 sano haddaan ka shaqaynayo kale aan wax isbedel ii samaysan laakiin aan arko ballanqaad mustaqbalkayga ah haddii aan shaqadii maanta 3 sano 4 sano maanta aan bilaabo runtii inay ii noqon karto mustaqbal wanaagsan sidoo kalena maanta aan maxay dad badan saameyn ku yeelan karo macnihii markaa waxay i tustay waxa aan maanta joogay yacniga xilli aan noloshaydii xilligaa may saxsanayn laakiin waqtigan waxaan la kulmay baa ah wax kastaba ay ugu qaadato laakiin I'm ready inaan maanta fursaddan ka faa'iidaysto code telefona soo galay marka sorry ka raali noqda dib male maasha allah coach waa aad iyo aad ugu mahadsan tahay haddaba su-aasheeda kale waxay tahay ma waxaa jiray soomaali hore oo arrinkan aad uga daysatay mase adiga unbaa bilaabay oo dee soomaali u bilaabay fursaddan maantay mase dad hore oo waxaa jira hore usoo samaynayey oo dee maanta adiga role model ku ahaa horta xaqiiq ahaan nolosha marka adigu doonayso inaad isbeddel samayso ama horumar samayso mar waxaad u baahan tahay role model dadaad ku dayato marna yacniga waxaa laga yaaba dadkaas inaanay jirin okay marka runtii xilliga aan joogay oo kale nolosha ka horba markaan fursaddan xitaa soo gaarin maan haysanin role model nolosha aan ku daydo dhahdo okay dadkaasi tusaalayaal bay ku yihiin maanta noloshoodii bay bedeleen ama dadkaasi maanta maxanihii waxay ku guulaysteen nolosha doonayeen inay ku noolaadaan ama wax iiga muuqan kara anigu noloshaan doonayeen ku noolaado inay maanta iyaguna ay system xaqiijiyeen oo kale marka taa maan haysanin role modelkaas laakiin markaan fursaddan arkay waxaan arkay inaanay horta cid iiga horreysay jirin xilligaas laakiin dee businesskani yahay big success 90 countries maanta ka shaqaynayo sidoo kalena millions of maanta ay entrepreneurship yihiin yacniga noloshoodii maanta is wada bedeshay sidoo kalena marka aanu arkay dib ma laha in ay maanta dad iga horreeyeen laakiin aanu arkay markaas inay tahay anigu inaan maanta bilaabo oo aan dee maanta sabab noqon karo inay dad badan maanta igu dayan karaan marka marar badan waxaad u noqon kartaa inaad tusaale aad raadsato marna waxaa muhiim adigu inaad tusaale noqoto marka tusaaluhuna yacniga wuxuu ka bilaabmaya adigu inaad tiraahdo day one maanta waxaan doonaya inaan maanta noloshayda bedelo dad badanna maanta saameyn ku yeesho iyaguna inay noloshooda isbedelaan marka role modelkii inaad noqoto oo kale waxyaalaha hamigayga maxayday ka mid ahayd inaan anigu role modelkii noqdo inaan maxayday anigu proof gareeyo oo kale in aan xaqiijiyo in aan maxayday aan sameeyo wixii aanay dad kaleba samaynin oo kale because nolosha haddii aanad maanta adigu aad dad un kaga dayato maanta waxay sameeyeen laakiin aanad adigu wax cusub samaynin oo kale isbeddel cusub meelaysa marka sida caadigaaba waxay tahayba markaad doonayso waxaanad haysan jirin inaad hesho waxaad u baahantay waxaanad samayn jirin inaad samayso marka taasna yacniga cidna uguma baahnayn inaan maanta xitaa xilligaas aan kaga daydo oo kale maadaama ay tahay maanta fursaddan ii shaqaysay energygaan u baahnaa helay lifestylekii systemkii maanta 80% nutrition 20% workoutkaygii inay ii saxantay deetana markaana aan leeyahay yes waan jecelahay maanta waxaana samaynay
وانا اولي patient واي waxaan qof health lifestyle patient u leh awl horeba ku noolaa okay marka maanta inay tahay the same time mid maanta fursadan businesskaygina dhisaysa haddana maanta aan inspiration ugu samayn karo dhalinyaradii kale bulshadii kale marka waxa ii noqotay waxaan runtii aan u baahanahay inaan anigu maanta sameeyo ما شاء الله كوتش أدي هذا أمها سنتهاي وحنا تشعلها إن داودياشو أي فهمين إن شاء الله إن حدا وحنا رجعنا إن قول وين أيات كجارتي هذا نفط هذا يسومالي ده بدي قول وين بتجارسيسي هذا ما مركا إن لين يرادا ما أنتي محاد إن أتصل هذا ما أنت لين يرادا تكسو كردي كرت ما ده بدو لين يرادا هاي waqtigii maantay la taagan yahay dhalinyaradu ayaga laftirkoodu ay de fursadan ka faa'iideysan lahaayeen cabsi badanna ay qabaan oo ay leeyihiin maanta de waxaan sidee noqon doonaa sidee adiguna aad sheegtay inaysan jirin qof role model oo ku daysanaysay laakiin zero aad ka bilowday maantana heer oo aad joogto marka muhiimaddu waxay tahay dhalinyarada sidee maanta ku fahmi karaan fursadan qaaliga ah weliba waqtigan ان horta waxa weeyaan waxa jirta wax la yiraahdo maxay yahay maanta anigu qofkii la soo wadaagay fursadda bilowgeygii markaan maanta bilaabayay wiil dhalinyarada ahaa laakiin ana asxaabnahay laakiin isagii aan maxay yahay bilaabin fursadda ama aan ka faa'iideysan balse aniga ii keenay markaas okay marka sababtu marka waxay ahayd inaan anigu xilligan ahaa qof baahidiisa og runtiina maanta aan u baahnayn in uu maxay yahay cid kale maanta uu u joojiyo raahdo waxaan asaas iyo macquul ma aha iyo waxyaalaha la halmaalo dadka maanta dhalinyarada waxyaalaha u badan ee haysta waxa laga yaabaa isagoo fursad maanta heli kara oo guul noloshiisa u baahan inuu gaaro runtiina u shaqaynaysa wuxuu maanta samaynayo haddana in uu sababo kale oo yacniga waxaan maxay yahay hore looma samayn oo kale way dhici jirtay dadku inay raadaan waxyaalahan lifestyle-ka iyo businessyada noocan u shaqeeya weligin bulshadina hore ugama shaqaynin inuu qofkan yacniga isiraahdo tusaale ahaan oo kale waqtigeedii ma joogtid inuu isiraahdo kale bilaad ku shaqayn weydaan niyadiisa isiraahdo ka baqo oo kale cabsi yara gasho iyo waxyaalaha la halmaado marka kalsooni darrada ka bilaamaysa ka mid tahay qofku inuu yacniga maanta uu guul gaari waayo ta ugu badanina waxay tahay inspiration badan baynan haysan oo maanta tusaalayaal ka noqda nolosha inaynu horumar samayno oo kale waayo maanta haddii bulshada ay ku badan tahay dad entrepreneurship fara badan maanta haddayna haysano success life oo maanta idaacada laga wareysanayo YouTubes maanta dhalinyaradii maanta waxa ku badan marba xijiya ama hareeraysiye waxa weeyaan yacniga waxyaala aan macno u samaynayn dhagahooda aragtidooda iyo dadka ku hareeraysanba waxay maanta samaynayaan marka hadday social media tahay hadday YouTube tahay hadday meel walba tahay yacniga ma haysano exactly wax ina motivate garaynaya oo maanta ina siinaya yacniga markaad inspiration helayso waa markaad arkayso maanta wixii aad u baahnayd wax samaynaya cid samaynaysa cid aad kaga dayan karto cid yacniga maanta iyagoo maanta noloshii dee maanta dad samaynaya success iyo progress baxda qofku maaha nolosha inuu markiiba uu noqdo big success aad ku dayan kartaa laakiin inay yihiin dad maanta progress samaynaya wax samaynaya isbedel samaynaya the community naftoodiiba marka taasa waxyaalaha maanta dhalinyaradu u baahan inay arkaan ama sameeyaan xataa haddii aydan hore u haynin oo kale inaad maanta bilaabi kartaan role model ka noqon kartaan important wax oo dadku u baahan yihiin maanta inay helaan laakiin mid baaba jirtaba anigu waxyaalaha i motivate gareynaya shakhsiyan waxay ahayd mar walba in aan wax ka bedelo xilliga markaa jooga haddii aan cid hore samaynin I don't care laakiin inaan anigu xilligaa waxaan joogay aniga noloshaydu waa mid keliya qof baan ahay magac gaaraan leeyahay anigu waxaan ku jiraa bulshadan ka mid ahay nolol baan doonayaa dadkii baan ka mid ahay marka waxaan doonayaa anigu horta shakhsiyan aan xaqiijiyo hadafkayga nolol ahaaneed marka labaadna inaan dadkii kalena iyagana aan maanta tusaale ka noqon karo bulshadii marka dhalinyaradu maanta habka ugu fududa ay wax ku bilaabi karaan isbedel ku samayn karaan waxay tahay horta number 1 uma baahna inaan dadka bedelno iminka waxaan ka wada fakarnaa inay dadka bedelno qof walba wuxuu isleeyahay community-ga bedel uu ka fakara qof kastoo dhalinyaro uu jecel yahay af Soomaali laakiin waxba laguma bedeli karo hadday maanta ba yacniga ay dadka dhadaan hala yaaco Soomaali ha isbedesho hala kaco Soomaaliya toosada maanta hayna nothing wax soconaya ma jiraan okay wayna xijiyaan yacniga way ka buuxaan everywhere yacniga wax factio maanta wax value yacni wax qiimo ku sameynaya maanta soo kartid noloshaadu ku soo daraya hadday tahay mindset-kaaga hadday tahay noloshaada hadday tahay caafimaadkaaga hadday mustaqbalkaaga oo maanta wax qiimaha ku soo darayaan ma jiro wax maanta meelaha ka wada hadlayo dhan